السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارته سو دواada mar kale waa anagii ku balansaneen ana fraction ka dhameystirno isku dhufashada ayaan ka shaqeynay hadda waxaan maanta sameeynaynaa dividing fractions haddaad isku dhufasho hore soo aragtay qaybtu waa sahal hadday isku dhufashadii aan soo fahmin ku noqo ajalooyinkii isku dhufashada ah isku qaybintu example-lan kugu tusaynaa tan koobaad baan ka shaqeynaynaa midda koobaad oo ah midda ugu sahlan 3 loo qaybiyo 4 waxaad u qaybisaa 6 loo qaybiyo 3 waan iska nir 3dan waa la isku yareyn karaa waa ognahay marka waxaan leenahay tilaabada ugu horeysa oo sameynaysa adigu iska cadaan waxaad sameynaysaa bal marka hore sideedaad u dhigaysaa tan hore waxa u dhigaysaa 3/4 sideeda u dhigaysaa oo dhigtay calaamada division-ka ana waxay noqonaysaa times ba u bedelaysaa times ba ka dhigaysaa labadaana waa kala rogaysaa kan kor baa geynaysaa kana hoos baa geynaysaa waayahay hadda leedahay bal wixii iskoosan kara aan isku gooyo saddexda iyo hadii sidaad aragtid lixda waa isku qaybsamaan waxa dhigi kartaa saddex meelood oo min saddex hadii loo qaybiyo waa hal lixna hadii saddex loo qaybiyo waa labo halkaasna soo kor waxa kuugu haray dusha sare maxaa kuugu haray saddex iyo waxa kuugu haray hal saddex lagu dhuftay hal waa saddex halkaas hoostan maxaa kuugu haray hoostan waxa kuugu haray 4 lagu dhuftay 2 waa 8 waayahay taas marka waad kala rogaysaa waa la isku jarjaraysaa mid labaad aan soo qaadano ta labaad aan soo qaadanayno waxa weeye mid xoogaha leh mixed ah ka soo qaad haday sidan tahay 2 whole number 3/4 saddex loo qaybiyay markaan hadaan raahno 3 over hadaan raahno 5 3 over dhahno 10 baan dhahno 3/10 dhahno way waxaan sameynaynaa sidii oo kale way sahlan tahay waxaan leenahay bal marka hore laakiin markaan tani waa diyaar dhinacaan dambe dhinacaansa diyaar maaha diyaarso soo diyaarsanaysaa mixed ka saaraysaa waxaad ka dhigaysaa normal 4 2 ku dhufo 4 waa 8 3 ku dar waa 11 ka qoro halka hoosta ku dhig korka ku dhigo hoostana 4teedii ka dhig halkan calaamadan waa tii isbedelaysayo waxay noqonaysay times waxa ku xiga markaas kan waa ina kala qalibtaa price-ka bixinaysa ama lacagta aad bixinaysa in aad calaamadii aad bedeshay waxa weeye ka inaad kala qalibtid marka taa times ka dhigtid ka qalibeysa waxa ka dhigaysaa 10/3 hadda sidaad aragtid wax isugu ah baad fiirinaysaa way kala fog yihiin ka iyo ka laakiin haddana haday isu jarmi karaan waa isku jaraysaa kan labo u qaybsamaa waa labo halkan labo u qaybsantaa waa imisa waa 5 dusha sare maxaa kugu soo haray dusha sare waxa kugu soo haray 11 ku dhufo 5 waa 50 iyo 5 11 ku dhufo 5 waxa kugu soo haray 50 iyo 5 hoosana maxaa kugu soo haray hoosana waxa kugu soo haray 2 lagu dhuftay halka ka raaliyaad labada waxa noogu soo haray hoosta 2 iyo 3 2 hadii 3 lagu dhuftana waxay noqonaysaa saad aragtaan 6 answerkii wuxuu noqday in barabarkeeda haddaan isaga dayno 55 loo qaybiyo 6 waxa isku jarmoon u jeedna male halkaas aynu ku daynaynaa haddaynu mid saddexaad ku darno oo nu aadno halkan aadno raano number 3 aan raano halkaas aan soo qaadano mid kale midaan kale oo soo qaadanayna waxay tahay laba mixed maxay yihiin 3 whole number 2/4 ti laftigeedii baan soo qaadanaynaa divide by markaan raahno 2 whole number 1/2 aska dhahan waaya labada mixed haday yihiin waa sidii oo kale sheekadu waa sahlan tahay dib badan ma laha sababtoo labada mixed ka saar kan ka saar mixedka 4 waxaad ku dhufataa 3 ku dhufo 12 laba ku dar waxa weeyaan 14 hoosta maxaa dhigmaya marka 4 ku dhigmaysa divide-ina waxa u rogaynaa times kana sidii oo kale aan yeelaynaa 2 ku dhufo 4 mid baan ku daraynaa waa 5 marka wuxuu noqonayaa 5 loo qaybiyay 2 5 loo qaybiyay 2 ayuu noqday laakiin waa qaldannahay daasa u dhigtay maxaa qaldan hadda bal adigu fiiriyo maxaa qaldan macnaha price-kii ma aanan bixin waan qaybtii waan rogno waxaan ka dhignay times haddaan rognay waa inaan kana kala rognaa taa marka waxay keenaysaa inaan 2da aan ka kormarino 5 kana aan hoos geyno rano 2di waa tan 5kiina waa kaas taasaa sax ah maxaan isku jari karnaa meesha ka muuqata kaliya
waxaa ka muuqda labadan waa isku yareeyn karnaa daaram laakiin halkan waxaan u qaybinaynaa labo meesha labo u qaybi waa labo halkaana waxaa u qaybisaa labo waa hal labada kala fog isku 14 labo u qaybi waa 7 dusha sare oo dhan waxaa kugu soo haray marka 7 hoostana waxaa kugu soo haray halkaas labadani la baxday waxay noqotay kan laba markaan u qaybino waa mid ka laba markaan u qaybino waa 7 markaan ku dhufano 7 markaynu ku dhufano laba ku dhufano halna waa 7 dusha sare hoostana waxaa weeyaan hoostana waa 5 marka waxay noqotay ansarkii 7 loo qaybiyay 5 aan ku celina taas halkaas hal mar waan ka isku jaraynay kaas iyo kaas waa isku qaybinay laba halka ku hadhay labadaas 14 u qaybino 7 halkaas ku hadhay 7diyaas baa dusho dhan ku hartay hoostana waxa ku soo hartay waan khaladnay hoos ma aan khaldin hoostana waxa ku soo hartay labadii way tagtay marka hal ku dhufo 5 waa 5 7 hal ku dhufana waa 7 halkaas aan joojin doonaa laakiin kan isku dayana ka shaqeysaan labada xabo idinkaga tagaya 3 whole number 1/7 divide by half iyo number 5 kan u dambeeyo ah and 7 and badino and 5 whole number 6/7 divide by 3 whole number 1/2 answer ka maxaan ku siin doonaa casharka dambe ayaan ku qaadaynaa koobna mar kale fraction ka division kiisu waa iska sahlan yahay hadduu normal yahay una wadanin horgalayaashaas sidiisaad ka calaamadaas saad kala bedelaysaa waan rogaysaa waan isku jaraysaa hadduu watana mixed ka saaraysaa waan rogaysaa si times ka u shaqeynaysa halkaas ayaan ku joojinaynaa wabillahi tawfiiq wassalaam